waraabe calalnaha u ka tegin ciilnaha uu qabin aqoonsigii cadow baynu ka helnay cadam wixii ka dhaca waa xaqaagii walaalaheen koonfur waxaan leeyahay wanaaggu wuxuu ku jiraa inaad labaysaan aqoonsiga haddii keele hambalyada soo dira waxaad arki doontaan dad hadlaya haayado iyo waddamo ina cambaaraynaya wadaado buuqaya munaafiqiinta dhag haw dhiginna yuhuud siyaasadba naga dhaxaysa diin nagama dhaxayso kuwa diinta inoo sheegaya kama hadlaan kufaarta madow iyo cadaan leh ee Soomaaliya sir iyo caad u buuxda madaxda Soomaaliya waxa ilaaliya kufaar cadaan iyo madow leh dhaqaalahana waxa bixiya kufaare diin ha ka maqlin munaafiqiintaas innagu shacabka Soomaaliya ku dhibatoonaya waa u naxaynaaye waxaynu isahaynaa siyaasi cadow ah iyo rakaabkiisa jaahil qabyaali keligi muslim ictisaam Somaliland diid iyo calooshi uu shaqaystaa loo dhan baan isahaynaa nimanka khudbadaha diiniga Somaliland u soo duubaya 40 sanadood dhiig baxa Soomaali maalin umay gurman nin wixii dhibaato Soomaali ka dhacday aan u kicin annaga majlis noo fadhiisan maayo kitaabna ka maqli mayno aan xaaladda maanta waxa keenay siyaasadda cadaawada iyo axmaqnimada ee Soomaaliya ka jirta aqoon darada xamar markay cirka dhulka iyo badda naga xidheen xaggay qabanayaan bay isla hayeen kala qaybin jabhado dagaalo isku dir dhibataday Somaliland u geysteen lama tirin karo Somaliland dhiman mayso Soomaaliyana dhilaysan mayse waa la kala danaysan wejigood gubay dulmiga inagu faleen waa ka noolnahaye gaadh ka haya ictiraafka qaranka kuwa filada Soomaaliya ku shiraya Xasan iyo rakaabkiisa waxa ilaalinaya kufaar madow iyo cadaanna ma kuwaas diin iyo Soomaalinimo noo sheegaya aayada quraanna bay soo wada daliishan agtoodana shacabkii Soomaaliyeed ba lagu gumaada lagu gubaya isdabar jaraya taariikhda dib u raaca muslimiinta yuhuudda iyo nasaarada heshiisyo badan oo taariikhiya ku duugan soo baadha kuwa xamar xukuma maaha madax shacabka Soomaaliya doortay waa doofaaro loo dooray oo dibadda dawlado kale ka soo dirteen waa dulaysanaya xamar la dhigtay oo dalka Soomaaliya lagu gumaysanayo uu dulaysan cadow shisheeye shacabkiina dulaystay xasan wuxuu yiri Somaliland aan wada hadalno miyaan ka yeelna waanu diidnay midnimo dhimatay Somaliland socotay Soomaaliya wada hadalkii uu noo dhamaaday ninka xasanna munaafaqada wuxuu ku darsaday doqonino dulliga lama hadlayno haddaanu ictisaam nahay Soomaalidu inay gaala tahay horaan u sheegnay marka Somaliland inaan yuhuud ku sheegno waa fududahay waa yuhuud dhowr la ciro waa baadari gaal ah filladii xamar waxa ku hadhay xasan iyo mooryaantii oran jirtay uuna kale Puntland Jubaland koonfur galbeed socde shacabka walaaladeen ee koonfur waan jecelnahay laakiin siyaasaddu sida xoolaha inoo kala xiro tahay Somaliland iyo Soomaaliya yuhuud iyo nasaaro baynu kala raacnay ya keenay dhibatadan siyaasiga xamar jooge doofarka aba dhibatadan dhigay 40 sanadood Somaliland cadday Soomaaliya kama jabin Soomaaliyana 40 sanadood waxay awood haysay Somaliland bay dul dhigtay ilaahay ina badbaadshay waxba lama hadhin Somaliland way kibree xasan waxa lagu haystaa dembiye waaweyn maxaad ka qabtaa dembi ma leh dagaal jabhado dhaqaale curyaamin aflagaado illa qurba joogi way kibree marka dembiga inay yuhuud aadan waad qiratay Soomaaliya Somaliland way kibree shacabkii la raadin jiray dabba dhex dhigtay ciyaalo TikTok iyo wasiiro wasakho ummadda caayad samaysatay waxa tahay daalim soo laabtay hoggaankii dalka waad ku fashilantay laba goor baad xilka qabatay wax aqlina kuuma kordhin waxa tahay damiin dambiile ah shacabkii Somaliland ee Soomaaliya ku nool waa loo hanjabaya waxaan leenahay taageerayaasha Xasan Sheekhow afka hagaajista shacabka reer Soomaaliya ee Somaliland ku dhaqan tolnimo walaalnimo ixtiraam dheeradan u hayna waa ka duwanahay siyaasiga xamar akuye hawl adduun badana
ma cid la ciirsi lacaan fadhiya waa igu ciirsantahoo taladu cayn wareegsantee aniga calool xumoodaye caaway uu darantee xaggaan cuskada shacabka Soomaaliya waa walaalaheen sharaf bay leeyihiin xaqa iyo cadaaladuna agtooda waa ku weyn tahay hambalyo iyo bogaadin baan ka filaynaa